wafdigani waxa uu hordhac u yahay wafuud ka qayb galaysa shir looga hadlayo taageerada Soomaaliya oo dalalka xubnaha ka ah ururka Iskaashiga Islaamka ay ku yeelanayaan maalinka berita ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliyana ay martigelinayso Hashim Yusuf ku-xigeenka xogayaha guud ee ururka Iskaashiga Islaamka ee dhinaca bini'aadanimada ayaa hogaaminaya wafdigan waxaana qayb ka ah mas'uuliyiin ka socota dalalka ka qayb galaya shirka madax ka socota dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wafdigan ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha aadan cadde ku-xigeenka xogayaha guud ee ururka Iskaashiga Islaamka ee dhinaca bini'aadanimada Hashim Yusuf ayaa muhiimadda wafdigan ku sheegay qabashada shirka taageerada Soomaaliya أود أن أعبر عن خالص سعادتنا بتواجدنا هنا في أرض الصومال في مقدشيو وأن أؤكد أن هناك اجتماع هام سيعقد لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث تطورات الأوضاع في الصومال في طريقه إلى التعافي وحان الوقت لتكثيف الجهد لدعم الشعب الصومالي والحكومة الصومالية حتى تتمكن من اجتياز هذه المرحلة الحرجة. هاشم وحو أدكي سيدة دلالك إسلامك يوقع عن تاي قرب استاق دادك أي دولة الصوماليات ونحن هنا لإرسال رسالة إلى الشعب الصومالي بأن العالم الإسلامي يتضامن مع الشعب الصومالي ويتضامن مع الحكومة الصومالية ونأمل أن تقوم الدول الأعضاء بمساعدة الصومال في المرحلة القادمة لأن المرحلة القادمة مرحلة دقيقة ونأمل أن تأتي هذه المساعدات حتى لا يحدث تراجع في الصومال. xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya Saciid Xaaji Maxamuud ayaa bogaadiyay imaashaha wafdiga iyo qabashada shirka ururka Iskaashiga Islaamka ay ku yeelanayaan magaalada Muqdisho. marka shirkaas wuxuu yiri waxaan u nimid inaanu maaragtay Soomaali tusno inaanu garab taagannahay waqtigan xaadirka ah oo Soomaaliya ay ka soo baxayso sanooyin dhib badnaa oo ay soo aragtay mashaakil oo dhan haddana ay bilowday inay ka soo caafimaado marka waxaanu tusaynaa inaanu garab taagannahay inaanu wax la qabsanayno annaguna anoo ka hadlay magaca wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxdeedaba waanu soo dhaweynay wafdigii noo yimid waa haddana waxaanu ku soo dejinaynaa maqaamkooda meeshay joogi doonaan Britain hadduu Ilaahay yiraahdo shirki baa noo bilaabmay Soomaaliya oo ku jirta marxalad soo kalasho ah dowladda federaalka Soomaaliya waxay diiradda saaraysaa dadaalada la xiriira horumarinta xiriirka wadamada caalamka si gaar ah dalalka Islaamka oo ururka Iskaashiga Islaamku laf dhabar u yahay Cabdi Shakuur Ali Ahmed warbaahinta qaranka Muqdisho.